السلام عليكم سو دوادا magacaygu waa xasan mudane waxaan ahay agaasimo ku-xigeenka macadka Highbad waxaan idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina muxaadaradan muhiimka ah oo ku saabsan taariikhda dastuurka dalkeena sida aad la socotaan waxaana soo maray 3 jamhuuriyad oo kala ah yani nidaam dowladnimo ama jamhuuriyadana soo maray saddexda waxay kala yihiin jamhuuriyaddii Soomaaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga iyo midda hadda aan joogno oo ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka mid kastaba waxay leedahay dastuur iyo sharciyad gaar ah ku dhaqmaysay waxaan u fadhinaa mawduucaas inaan ka sheekaysano taariikhdii dastuuradii waddankeena soo maray waxaa caawa nala jooga Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo horey usoo noqday la taliyaha wasaaradda dastuurka Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 2017 ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay 2020ka wuxuu kaloo soo noqday afhayeenka xukuumadda intii u dhaxaysay 2016 ilaa iyo 2017 Cabdicasiis soo dhawow mute codku waa kaa xiran yahay mute-kiisa qaad أهلاً وسهلاً حسن وأن كوما دعلنا هذه معك وأنا دواء هذا ما صنت. عبد العزيز runtii aadan kaa mahad celinayna waqtigeeda qaaliga ah waadna ogtahay miiska waxaa noo saaran muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan dastuuradii waddankan uu soo maray taariikhiyan iyo caqabadaha midka hadda ugu dambeeya qabyada ah caqabadaha hortaagan iyo waxyaabaha keenay in ilaa hadda la qabyo tiri waayey intaasay muxaadarada ku dil wareeganaan doontaa marka aadan kaa mahad celinayna waqtigeeda qaaliga muxaadaradu way noo bilaabanaysaa waxaa haysataa 30 daqiiqo haysta oo muxaadarada ah kadibna waxaan ku wareejin doonaa dadka ka qaybgalayaasha su'aalaha ku weydiin doonaan soo dhawow Cabdicasiis gudaha u gal waan xasan aadan ma santahay waxaan rajeynayaa inaan aqbali doonto saaxiibkan Faysal Axmed oo gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland ah marka waa maasantiin saaxiibayaal soo dhawaada runtii aadan ugu faraxsanahay sharafeen ii tahay inaan caaw halkan ku kulanno oon barnaamijkan isugu imaanno sidoo xasan sheegay waxaan ka hadli doonaa taariikhda dastuur samaynta Soomaaliya iyo dastuurkeena dabcan kumeel gaarka markaan soo gaarno hadda dalku ku shaqeeyo dawladda ay ku howlgasho asagana sidoo ku yimid iyo waxa uu kumeel gaar u yahay iyo geedi socodka dib eegis dastuurka oo ilaa 2012 soo socday waxa uu yahay geedi socodkaas iyo qaabka loo maxaan ku iraahdaa dhameystiri doono loo dhameystiri karo mudxeleedka soo socda insha Allah soo dhawaada I think waxaan maleynayaa screen share okay ma yahay Xasan ha okay ha okay soma ha okay okay waa bilaabanayna marka walaalayaal soo dhawaada maanta waxaan u balansanahay inaan isla jeexjeexno isla falanqeyno wax badan ka ogaano intii karaankeena taariikhda dastuurka Soomaaliya horta marka hore waxaan rabnaa inaan isla fahanno waxa uu yahay dastuur si kooban qaarkeen badankeen waa naqaanaa laakiin haddana si kooban oo maxaan ku iraahdaa luqad dastuuri ana u fahno ama luqad qaanuuni waxay dhahan dastuurka horta waa social contract waa heshiis bulsho wuxuuna nidaamiyaa bulsho meel ku wada nool dastuurka wuxuu qaabayaa haykalka iyo wada shaqeynta ama qaab dhismeedka hay'adaha dawladda hay'ad walba oo dawladeed ama fulintii cadaaladii maxaa la yiraahdaa sharci dejinta waajibaadkooda iyo howlaha looga baahan yahay marka waxa ugu muhiimsan oo dadka badanaa ay ku qeexaan waxa waaye inuu social contract marka hore yahay constitutionki marka halkaan kasoo gudubno taariikhda dastuur samaynta Soomaaliya si kooban haddaan uga hadalno horta marka hore Soomaalida marka hore waxay ahaayeen dad reer miyi ah oo miyiga isaga nool qabiilo u kala degan sharcigooda asaasiga ah ay ku dhaqmaan oo maxaan ku raadaaye isku arrimahooda ku fishan jireen xilliga colaadda iyo xilliga nabadda wuxuu ahaa xeer Soomaaliyeed waa jiri jiray waad la socotaan sidaan rajeynayo marka qabiil kasta qabiilka kale xeerka ama xilliga colaadda ama xilliga nabadda waxa ay ku wada xaaltami jireen ama xiriirkooda ay ku maareen jireen
waxa uu ahaa xeer Soomaaliyeedkaas kadib dadkii markii dambe waxay bilaabeen awooyaasheen inay usoo iyo abayaasheen inay usoo digrogtaan reer magaalnimo magaaladii la yimaado gumeystii lala dagaalamo dowladnimo la doono xurriyad madax bannaan la doono kadib markii maxamiyadana la geliyay waa tii markaan dowlad helaynay dowlad la'aanna ma shaqeyso dastuur waxaa qasab lagu noqdo marka in constitution la sameeyo marka dastuurka ugu horeeyay waxaa la sameeyay 1960 asagoo kooban si kooban u faahfaahsan waa helaynaa marka dastuur samaynta Soomaaliya waxay soo bilaabatay la yiraahdaa 1957 waqtiga maxamiyadda xilligaas la soo bilaabay constitutionka in la sameeyo wuxuuna gogol xaar u noqday howlihii soo bilaabay 1957 waxay gogol xaar u noqdeen dastuurkii 1960kii oo ay dadka Soomaaliyeed runtii afti u qaadeen oo ay ogolaadeen June 1961 marka dastuurka 1960kii aad loo amaanaa waxa lagu amaanaa sida mabaadi'da dimuqraadiyadda ama maxaan ku yiraahdaa xuquuqul insaanka qaabku u ilaaliyo iyo waxaa la yiraahdaa dadka qaar oo sharci yaqaanada ah dhowr qof oo wareystay waxay ii sheegeen inta runtii ka shaqeynaya wasaaradda constitutionkii 1960kii inuu ahaa inuu soo galayo kuwa ugu fiican hadduusan eemakan ugu fiican ee wadamadii xurriyadda qaadanaya ee Afrikaanka ee samaysteen marka la eego sida uu u ilaalinayo check and balance-ga sida uu u ilaalinayo maxaan ku raadaaye kala madax banaanida cadaaladda iyo xukuumadda iyo sharci dejinta iyo inuu ka dhigay awoodii uusan presidential uusan ka dhigin oo parliamentarian uu ka dhigay marka constitutionadii Afrikaanka badankood waxay noqdeen kuwo oo maxaan ku raadaaye presidential awoodii oo madaxweynaha la isugu geeyay taasna waxay sababtay xurriyadiiba ama wax uu yar kadib xurriyadii in wadamadoodii ay u gacan galaan Afrikaankii madax la doorto oo kaliya waxay kaliya kuwa xoog meesha ku yimid iyo kuwa la doorto marka inta ka soo gudbino marka dalkeena wuxuu yeeshay 4 constitution uu yeeshay iyo 2 axdi qarameed dastuurkii 1960kii kii 1979kii kii 1990kii oo aan asaga afti loo qaadin laguna maxaan ku yiraahdaa dhaqmin maxaa yeelay dawladda burburtay bilooyin yar oo kadib markii la sameeyay iyo dastuurka kumeel gaarka hadda aan leenahay 2012kii la ansixiyay oo ergooyinkii ansixiyeen marka dastuurka kumeel gaarka intaan soo gaarin 2 axdi qarameed u dhaxeeyay kii carta iyo kii bagaad waana imaan doonaa ayagoo si kooban u faahfaahsan marka dastuurka 1960kii wuxuu ahaa dastuurkii ugu horeeyay Soomaaliya ee yeelata dabcan oo dadka Soomaaliyeed ay ansixiyeen marka maxaan ku raadaaye waxa qoray dad guddi farsamo oo ajnabi iyo maxaan ku raadaaye Soomaali isugu jirtay dadkaas haddii aan si kooban wax ugu sheego waxaa gudoomiyaha ka ah nin Talyaani u badnaayeen Costanzo nin yiraahdo gudoomiyaha ka ilaa 11 qof oo ajnabi ah jiray oo dastuurka wax ka qoray qaarkood jaamacadda waxay ka tirsanayeen Padova la yiraahdo oo Talyaaniga marka qaarkood xeerlaaliyaal ay ka ahaayeen dalka xilligii maxamiyadda qaarkood waxay ka ahaayeen xeerlaaliye ku xogeen marka dad uun ka tirsanaa si uun uga tirsanaa dawladdii maxamiyadda ay ahaayeen laakiin ajnabi ah 11 qof oo ajnabiga kadibna waxaa lagu soo diray ilaa 7 qof oo Soomaaliya guddigaas farsamada oo 1960kii dastuurka qoray waxaa kamid ah dadkaas Sheekh Abubakar Abdullaahi Umar Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Sheekh Ali Abubakar Maxamed Sheekh Gabyo Maxamuud Yuusuf Aadan Muuro Sheekh Cabdulle Maxamuud Macallin Maxamed Xasan Maxamed Xasan Waqooyi ay inta qof oo maxaan ku raadayay Soomaalida ah marka dastuurka marka wuxuu ilaalinayaa xuquuqda aadanaha iyo siyaasadda ka qaybgalka siyaasadda si waliba aad uga horumarsan sida kale ee dawladaha Afrikaanka xilligaas nala faca ahaa xorriyadeena marka la fiiriyo wuxuu aasaasay marka dawlad dhexe oo awoodda aanan ballaarnayn sida yani decentralized aanan ahayn oo sida federalismka aanan ahayn awoodda aan baasanayn oo dawlad dhexe uun ah oo dimuqraadi ah oo nidaam baarlamaani ah parliamentarian system uu ah walaha fulintana ra'iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaabaya kadibna baarlamaanka ayaa ansixinaya marka dalka waxaa lagu xukumayay ilaa iyo 1969kii
kadibna maxaa dhacay kadib waxaa dhacay waa tii kacaankii dalka uu qabsaday 1969kii wuxuu magacaabay marka saraakiishii dalka qabsatay waxay magacaabeen guddi soo diyaariyay dastuurka 1979kii la keenay waxaana afti loo qaaday 25 August 1979kii wuxuu aasaasay dowladda hanti wadaag ah socialist state iyo hal xisbi oo loogu magac daray xisbiga hanti wadaagga gacanka Soomaaliyeed markii odayaashii iyo dhalinyarada saraakiisha dalka ay qabsadeen waa tii dastuurka 60kii ay laaleen axsaabti waa waxba kama jiraan ay ka soo qaadeen oo axsaab lama ogoleen marka dastuurkii ay samaysteen waxa uu xiirinayay uu ogolaanayay hal xisbi oo loogu magac daray xisbiga hanti wadaagga gacanka Soomaaliyeed marka dastuurka 1979 wuxuu unkay dowlad dhexe magacii Somali Republic oo xorriyadda aan ku qaadanay markii waqooyi iyo koonfur la midoobay waa la bedelay waxaan loo bedelay Somali Democratic Republic loo dastuurkaas ku bedelay waxaana dalka lagu maamulay intii kacaankii 21 sano dowladdii kacaankii ay jirtay kadib maxaa dhacay 1990kii si uun xaalado markaas jiray ugu go'aan qaatay dastuurkii waa la bedelay 1999kii la sameeyay 90kii marka waxaa la sameeyay dastuur 14 October la sameeyay 1990kii ayaa la sameeyay dastuurkan afti dadweyne looma qaadin bilooyin yar kadib dowladdii ayaa burburtay dalkana laguma dhaqin wuxuu bedelayay marka dastuurkii hanti wadaagga oo odayaashii kacaankii dhalinyarada saraakiisha dalka qabsatay ay samaysteen wuxuu ogolaanaya marka qaybgalka siyaasadda iyo axsaabta siyaasadeed sida 1960 oo kale wuxuu si cad u qeexayay in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay soo dooranayaan shacabka kadibna baarlamaanka ay ansixinayaan xukuumad uu magacaabayo madaxweynaha marka dastuurkan dad odayaal oo ayagana sharci yaqaanaha oo la sheekaystay intii aan walaal dastuurka ku jiray waxa ay iiga warameen in uu ahaa dastuur yacni awoodda dowladda dhexe ka soo dejinaya ilaa heer macquul ah oo gobolada gaarsiinaya yacni awood baahsan oo kale oo laakiin federaal aanan ahayn laakiin awood baahsan sida Kenyana aanan ahayn laakiin uu gobolada ay leeyihiin awood ay arrimahooda ilaa ay xad ku maamulan karaan waxayna sheegaan dadka sharci yaqaanada dhowr qof oo la sheekaystay in haddii dalka lagu maamuli lahaa burburkii laga baaqsan lahaa waayo xamaraa la isku haystay siyaasaddii waa la furfuri lahaa dadkii mucaaradkii iyo siyaasiyiinta is haystay iyo jabhadihii siyaasadda inay ka qayb galaan loo ogolaan lahaa dadkii gobolada jooga odayaashii gudoomiyaashii awoodaa la siin lahaa ay ku maareeyaan howlahooda laakiin nasiib daro waa tii dee wadankii uu burburay 1990kii January-na waa tii odaygii Siyaad Barre madaxweynihii Siyaad Barre uu magaalada ka tagay marka nasiib daro dastuurkaas ma hirgelin mana shaqeyn aftina looma qaadin waa la burburay waa tii la ogaa qaranjo waa dhacay marka 10 sano kadib oo colaado ah carta la isugu tagay magaalada Djibouti dalka Djibouti gobolka carta la isugu tagay marka dambe gobolka laga dhigay shir dib u heshiisiina ka dhacay waxaa ka qayb galay dad ergooyin ah oo ka socday dhammaan qabiilada Soomaaliyeed xaddi qarameedkii koowaad ee Soomaaliya yeelato halkaa lagu soo dhisay oo lagu soo qoray waxaana xaddi qarameedkaas ayadoo laga ambaqaadayo lagu dhisay dowlad kumeel gaar ah oo baarlamaani ah oo dimuqraadi ah waxaa hogaaminayay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan waxaana loo xirsaaray dowladdaas xaddi qarameedku u xirsaaray in dib u heshiisiin balaaran dadka Soomaaliyeed wixii colaad soo gaaray ay kaga dabaalan karaan oo dib nabadoodii iyo wada noolaashooda ugu xaqiijin karaan in dib u heshiisiin ay sameeyaan wuxuu xaal soo socdaba waxaa la isugu tagay haddana 2004 la soo gaaray waxaa la isugu tagay Imbagati Kenya axadii kale la sameeyay oo kumeel gaar ah waxaa lagu soo dhisay axadigaas dowlad kumeel gaar ah oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah yarxamo uu madaxweyne ka ahaa waxaa marka Imbagati inta la joogo ergooyinka ka qayb galay shirka ay guddoonsadeen in dalka federaal laga dhigo nidaamka federaalka ayaa halka lagu soo guddoonsaday kadibna guddi madax bannaan oo loo xilsaaray inuu qoro dastuur federaal ah oo dalka uu yeesho ayaa halkaas laga sameeyay xaalku uu soo socday kulliba nasiib daro ma dhicin in dastuur la qoro waa la ogaa dowladda Cabdullaahi Yuusuf wixii ay maxaan ku raadayay xaaladda dalka iyo dabcan caqabadihii jiray si laguma qori karin dastuur marka madaxweyne Sheekh Shariif ayaa yimid madaxweyne Sheekh Shariifna asagana wuxuu ku shaqeeyay axad qarameedkii xilligaa jiray kadibna
wuxuu xaal soo socdaba 2012 bishii August gole ansixin dastuur loo sameeyey oo ergooyin ah oo 825 qof ka kooban oo qabiilada Soomaaliyeed ka socday ayaa ansixiyey dastuurka meel gaarka waxayna ku ansixiyeen school police halkaasna kadibna ilaa haddana dastuurkaas meel gaarka ayaa dhaqangalka dalka marka dastuurkaas in la sameeyo iyo processkii uu ku yimid geed socod dheer iyo heshiis siyaasadeed ku yimid waa tii la ogaa road map xilligaas jiray oo xukuumaddii Cabdulle Gaas Prime Minister Cabdulle Gaas ay garwadanka ahayd dalka doorasho in la gaarsiiyo ku meel gaarnimada laga baxo dastuur la sameeyo ayaa halkaas marka road mapka uu ku faahfaahsanaa على كل حال وحال دستور كم الجارك أمريكا أسجنا دلك الديمقراطي نظام ديمقراطي دولة ديمقراطية أو برلمانية أيو دلك متخانة إيش كوسفينا يا دولة دينية هاي مركا نظام كاس ديمقراطي أو برلماني قال قاطي مركا هناك الدولة دنا حالة قد جاي دلك فدراليزم كي أو إنبعاث وقصة قاطي يا دستور كوشيء يا wuxuuna sheegayaa dastuurka in laba heer dawladda ka kooban tahay oo dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah saas uu dastuurku u qoran yahay dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah ama federal member states waxa af English lagu yiraahdo marka wuxuu awood gaar ah siiyay xilligaas 2012 dawladda ilaa ay waxay ahayd afar awoodood waanu arki doonaa waa u gudagalaynaa marka inta kalena waxaa maadaama Puntland bas ay samaysnayd iyo Galmudug oo madaxweyne caalam madaxweyne ka madaxweyne Faroole waxaa la yiri marka ilaa dawlad goboleedyada kale laga soo dhisay awoodaha waa laga hadlayaa laakiin dawladda federaalka hala siiyo ilaa awoodo xadidan oo afar inayna jecel la koobo maanayna marka dastuurka wuxuu xeerinayaa in geedi socod dib u eegis lagu sameeyo dastuurka si mataqaanaa loo qabiyo tiro marka waa in dib u eegis lagu sameeyaa dawladdii 2012 dhalato madaxweyne xasan madaxweyne ka noqdaan u xil saarneed haddana dawladda madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay u soo gudubtay kadibna haddana waa lagu guuleysan waayeen labadii dawlad baa ku guuleysan waayeen caqabado jira awgood waxaa loo sii gudbiyay baarlamaanka soo socda iyo madaxweynaha dawladda soo socda si dastuurka loo qabiyo marka dib u eegis dastuurka wuxuu yahay oo hadda aan haysano see dastuurka loo qabiyo karaa baarlamaanka sagaalaad wuxuu hore u sameeyay dib eegista koowaad uu sameeyay dastuurka meel gaarka ah saddex xorosuu soo saaray June 2016 marka xilliga marka June 2016 la soo gaaro waa tii dalka doorasho loo dareeriyay marka baarlamaanka qaraar uu soo saaray Luulyo 2016 taasuu howlihii dib eegis dastuurka ugu gudbiyay baarlamaanka tobanaad inuu halkaas ka sii wado marka baarlamaanka tobanaad isagana guddigii la socodka dib u eegis dastuurka la sameeyay sida kii sagaalaad waxa kiis baarlamaanka sagaalaad guddigaas gudoominaysa xildhibaan Warren Cariif kan hadda baarlamaanka tobanaad waxa gudoominayay senator Cabdi Qabdiid kadibna marka guddiga madax banaanayo baarlamaanka sagaalaad uu soo ansixiyay oo constitutionka oo xilligii wasiir Faarax Sheekh Cabdi wasiirka cadaaladda uu ahaa iyo dastuurka la sameeyay iyo waxa isla shaqo galay marka guddiga senator Cabdi Qabdiid oo la socodka dib u eegis dastuurka oo baarlamaanka tobanaad uu sameeyay ayagana waxaa la oran karaa ilaa hadda 80% yani howlihii farsamo u baahnaa dastuurka in lagu qabiyo tiro waa soo qabteen laakiin waxaa jiro arrimo heshiis siyaasadeed u baahan oo ay tahay in madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ka wada hadlaan ayagana waa imaanaynaa laakiin wixii farsamada ahaa iyo qaladaadkii yaray jirjiray waa ay saxeen 80% ayaa runtii la oran karaa shaqo fiican ayna qabteen hay-adaha u xilsaaran dib u eegis dastuurka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddiga la socodka baarlamaanka oversight committee la yiraahdo iyo guddiga madaxa banaan dib u eegista hirgelinta dastuurka ICRIC loo soo gaabin waaye marka wasaaraddu waxay hogaaminaysaa arrimaha fududeynta facilitationka coordinationka ku saabsan arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed ee dib u eegista dastuurka u baahan maxaan ku yiraahdaa laf dhowr ah si marka arrimahaas heshiis siyaasad looga gaaro oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiis siyaasad ugu gaaraan wasaaradda oo la kaashanaysa wasaaradaha kale ee shaqada ku leh marba qodobada laga doodayo oo ama awoodaha la qaybsanayo ayaa maxaan ku yiraahdaa garwadeenka ah howlaha u baahan arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed una diyaarinayso madaxda qaran
inay heshiis siyaasadeed ka gaaraan marka guddiga OC baarlamaanka la socodka dib u eegis dastuurka la socodka hirgelinta dib u eegis dastuurka iyo ICRIC waa wada shaqeeyaan OC marka OC waxay sameynayaan marka maxaan ku raadaaye marba qodobada loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo ayay u dhiibayaan ICRIC guddiga madax bannaan dad aqoon-yahanaha oo sharci qaanuun ka kooban yahay ayagaa marka saxaayo qodobadaas u baahan in dib u eegis lagu sameeyo haddii ay u baahan tahay in type error hadduu jiro iyo haddii khalad farsamo uu jiro ayagaa saxaayo marka hawshooda saasay u kala maxaan ku raadaaye u kala qaybsantahay marka qaybaha dib u eegis dastuurka u baahan waa arrimo farsamo oo labada guddi shaqo ku leeyihiin iyo arrimo siyaasadoo u baahan in wada xaajood siyaasadeed heshiis siyaasadeedba laga gaaro oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdooda ay ka gaaraan kadibna wasaaradda markay madaxda heshiiskaas gaaraan ay usoo gudbiso guddiyada dabadeedna luuqad dastuuri loo bedelo oo dastuurka lagu daro arrimaha u baahan wada xaajoodka oo maanta dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa dastuurkii uu u dhammaan layahay oo ilaa laba dowladood laba muddo xileed uu dhammaan waayo runtii arrimahaas farsamo marka laga soo tago arrimahan kaloo lafdhawar ah oo maxaan ku raadaaye u baahan heshiis ayaa jiro siyaasadeed waxaa ka mid ah awood wadaagga khayraad wadaagga hanaanka cadaaladda qaab dhismeedka dowladda doorashooyinka hanaanka maaliyadda maqaamka caasimadda hanaanka amniga jinsiyadda doorashooyinka I think doorashooyinka loo mar isku soo noqoto waa type euro marka kuwo laga heshiiyaa jiro iyo kuwo maxaan ku raadaaye arrimahan qaar laga heshiiyaa jiro iyo qaar wax yar uun oo ka mid ah laga heshiiyo marka arrimahan in laga heshiiyo waxay ku xiran tahay dalka waa tii federaal la qaatay federaaleynta dalka ayay muhiim u tahay waa in marka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awoodda wadaagaan khayraadka wadaagaan ilaa iyo qodobadan kale waa inay heshiis ka gaaraan kasoo gudub doorashooyinka waa laga heshiiyey waa tii baydhabo la isugu tagay oo shirkii baydhabo oo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe hadda jirta ay isugu tageen waxaan jeclaa inay tahay June 2018 waa tii laga heshiiyey doorashooyinka oo la yiri dalka hala geliyo doorasho qof iyo cod ah inkastoo hadda caqabado kale oo soo baxay heshiis kale siyaasadeed uu jiro oo September 17 hanaanka maaliyadda BFM ka laga heshiiyey inta kale revenue sharing iyo waxaa sii dhiman dakhliga sidii loo wadaagi lahaa iyo cashuuraha sidii loo ururin lahaa iyo arrimo kale oo badan sii dhiman kalluumaysiga heshiisa laga gaaray oo hadda intuu madaxweynaha hadda xilka uu mataqaanaa waxaan jeclaa inay ahayd ayadana 2018 batroolka heshiisa laga gaaray waxa baydhaba lagu soo gaaray doorashooyinka markii la gaarayo asagana la gaaray asoo faahfaahsan waxaa laga heli karaa wasaaradda cadaaladda boggeeda wasaaradda batroolka websitekeeda ayaa laga heli karaa cadaaladda waxaa heshiis ka gaaray maxaan ku irahdaye wasiiradii cadaaladda dowlad goboleedyada laakiin golihii amniga qaranka oo madaxda federaalka oo sare iyo madaxda dowlad goboleedyada ay isugu imaanayaan looma gudbin laakiin wasiirada cadaaladda isla gaara waa in marka loo gudbiyaa madaxda ay soo mataqaanaa kala saxiixdaan kadibna wasaaraddii usoo gudbisaa guddiyada si luqad dastuur loogu bedelo awood wadaagga marka waxyaabaha aan laga heshin awood wadaagga muhiim waaye marka la joogo federaaleynta dalka iyo maxaan ku irahdaa constitutionka dib u eegistiisa si loo dhammaystiro waa maxaan ku irahdaa muhiim awood wadaagga dalkan waa in waxa muranka mararka qaar keeno dhowr jeer idaacadaha ay ka maqasheen in maxaan ku irahdaa dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe isku qabsadaan arrimaha waxbarashada arrimaha caafimaadka arrimaha amniga marka waa in la wadaagaa waxbarashadii yaa mataqaanaa ii sheeg awood u leh dowlad goboleedka dowladda federaalka caafimaadkii marka awoodo yaroo laga heshiiyey uun maahane inta kale waxay u baahan yihiin in laga heshiiyo marka awoodaha saddex ay noqonayaan mid dowladda federaalka ay leedahay mid ay leeyihiin dowlad goboleedyada iyo mid maxaan ku irahdaa la wada leeyahay iyo waxaa dhici kara mararka qaar oo soo bixi kara mustaqbalka awoodo cusub ayaa soo bixi karo marka ayagana waa in la yiraahdaa awoodaha soo bixi doono ama kuwan hadda laga heshiiyo un aanan imaan yaa qaadanay ma dowladda federaalka loo deyn doonaa awoodo kala hadday soo baxaan ma dowlad goboleedyada loo deyn doonaa ma la wadaagi doonaa awoodaha oo la wada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada leeyihiin may ka mid noqon doontaa marka taasna in laga heshiiyo u baahan yahay laakiin dowladaha federaalka qaarkood awoodaha markaas gadaal ka soo baxo kale waxay u daayeen dowlad goboleedyada
ama dowladda federaalka loo daayaa ama waa la wada wadaagaa hadba sidii lagu heshiiyey ku xiran tahay marka dastuurka kumeel gaarka ah awoodaha muxuu ka leeyahay sida ku xusan qodobka 54 dastuurka kumeel gaarka hadda aan haysano wuxuu qeexayaa in si gaar ah dowladda u maamusho dowladda federaalka u maamusho arrimaha lacagta difaaca arrimaha dibadda socdaalka iyo jinsiyadaha inta kale caafimaadka waxbarashada arrimaha mataqaana ishaq beeraha awoodo badan oo hadda waa kuwana waxay u baahan in laga heshiyo ganacsiga dibadda ganacsiga u dhexeeya gobolada dalka dhexdiisa gobolada u dhexeeya gaabayaasha dhaqaalaha waaweyn waxbarashada biyaha xanaanada xoolaha caafimaadka beeraha bii'ada caymiska dakhliga howlgabka kheyraadka macdanta arrimaha dowladda hoose nidaamka maxkamadaha waa tii cadaaladda arrimaha amniga canshuuraha waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin awoodo kaloo badanba in laga heshiiyo marka hanaanka cadaaladda haddaan usoo gudubno wasiirada dowlad goboleedyada 23 ilaa 24 janaayo 2018 jowhar ay ku yeesheen maxaan ku rahdaa shir dowladda federaalka waxaa u matalaya wasiirka hadda gaashaaniga joogo wasiir xasan xaaji oo horan uga tirsanaa guddiga madax bannaan oo constitutionka marka waxa ay isla soo garteen oo sameeyeen awoodo waxay soo bandhigeen options ay soo bandhigeen si heshiis dhexmaray oo madaxda qaranka inay gudbaan ay tahay si ay ugu heshiiyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka marka heshiiskaas wuxuu kala saarayay oo maxkamadaha qaabka ay noqonayaan ayuu bidaaminayay marka waxaa la sameeyey marka heshiiska siyaasadda cadaaladda iyo asluubta ayaa lagu magacaabay jowhar qaab dhismeedka iyo kala sareynta maxkamadaha marka wuxuu u qaybiyey darajada koowaad maxkamadda degmada iyo maxkamadda gobolka darajada labaad maxkamadda racfaanka heer dowlad goboleed darajada saddexaad maxkamadda sare ee dowladaha xubnaha ka federaalka oo ay yeelanayaan dowlad kasta fadhigeeduna magaalo madaxda hadba dowlad goboleedka ay tahay maxkamaddaas waxaa kaloo jiray maxkamadda sare ee dalka oo fadhigeedu yahay muqdisho maxkamad dastuur oo waxaa jira hal maxkamad oo dastuur ah oo heer federaal ah xaruntoodana tahay muqdisho laakiin marka la joogo darajada saddexaad oo maxkamadda sare ah oo dowladaha xubnaha ka federaalka ay leeyihiin waxaa jira la yiri si gooni ah waxay dowladaha xubnaha ka federaalka mid walba waxay yeelanaysaa qayb dastuureed oo ka mid ah maxkamadda sare ee dowlad goboleed kasta waxaan jeclahay in aad loo fahmay heshiiska jowhar marka maadaama muqdisho maqaamkeed weli aan isla garan garsoor gobolka banaadir wuxuu xeeriyey in heshiiska garsoor gobolka banaadir loo maamulo sida hadda uu yahay oo loo daayay maxkamadaha gobolka banaadir ka jira sida hadda u shaqeeyaan ilaa iyo inta maqaamka muqdisho sida ku cad qodobka 9aad ee dastuurka meel gaarka ah laga asteenayo in loo daayay maxkamadaha sida hadda ay yihiin gobolka banaadir laakiin heshiiskan weli wasiiradii heshiiska ka gaaray cadaaladda oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa in madaxda qaranka loo soo gudbiyaa oo ay ka heshiiyaan kadibna wasaaraddii usoo gudbisaa maxaan ku rahdaa guddiyadii oo luuqad dastuur loo bedelaa kheyraadka dabiiciga ah yacni kalluumaysiga batroolka basaa laga heshiiyey weli kheyraadyo badanaa jiro oo dabiici ah oo ay tahay sida loo wadaagayo sida loo maamulayo dakhliga kasoo baxa sida mataqaanaa ishig asagana loo asteynayo oo dowlad goboleedka intuu qaadanayo degmada intay qaadanayso dowladda federaalka intay qaadanayso waxaasoo dhan in laga heshiiyo u baahan yahay waxaa kaloo jira maqaamka muqdisho dad badanaa isweydiinaya muqdisho maqaamkeedu waa dastuurka ayaa xaq u siinaya inay maqaamayso maxaan ku rahdaa marka waa in ayadana laga heshiiyaa oo lagu daraa dastuurka lagu caddeeyaa maqaamka muqdisho ay yeelanayso si ay matalaad uga hesho federaalka walayaasha federaalka marka muqdisho saddex miday noqon kartaa degmo caasimad ah caasimad dowlad goboleed ah ama caasimad gobol ku dhex taal marka saddexdaas wax ka duwan oo la heli kara malaan dowladaha federaalka ah oo qadiimiga ahna saddexdaas u mid waa in la isu yimaadaa oo madaxdii goboladii iyo dowladda federaalka heshiiska gaaraan saddexdan option mid inay qaataan waa degmo caasimad ah waa maxaan ku rahdaa waxaa lagu yirahdaa afka Englishka the capital city as a federal district Washington USA oo kale waa degmo caasimad ah
matalaada leedahay golayaasha ku leedahay waxaa jiro qaab ay u maamulato arrimaheeda maamulka marka mid walba waxay leeyihiin faa'iidadooda iyo faa'iido daradooda ama mid walba waxay leedahay matalaad u gooni ah laakiin waa in hadba xaaladda annaga nagu habboon aan qaadano caasimad dowlad goboleed ah Berlin Germany oo kale waa caasimad dowlad goboleed ah the capital city as a city state waaye ayagana matalaadoodu waa u gooni waa ka duwan tahay tan tii Washington oo kale maamulkooda si u maamushaan howlahooda maamulka marka ayadana waa in la isbarbar dhigaa oo midda Muqdisho ku habboon la qaato si dastuurka loogu daro oo caasimadda loo asteeyo kasoo gudub optionka saddexaad waxaa waaye caasimad gobol ku dhex taal the capital city as a city within a federal state Switzerland Bern waa caasimad gobol ku dhex taal waaye ayadana waa ka duwantahay waa ka gedisan tahay Washington iyo Germany waa ka duwan tahay matalaadooda siyaasadda waa qaab kale oo nooc kale ah maxaan ku raahdaa maamulkooda si kale u maamushaan Switzerland weli wadamada haddii federaalkan Soomaaliya la rabo inuu si fiican u dhaqan galo wadamada aan u baahna inaan wax badan yani ka kororsano waaye maxaa yeelay wadamada ugu qadiimsan uu ka mid yahay sinis qarniyo fog hore aad u fog I think inay Mareykanka xataa kaga horeeyayna umaleynaya federaalka laakiin waxaan u baahnaa inaan soo hubino laakiin dad aad federaalkooda yani u horumarsan yahay oo aad u aaminsan waaye maxaan ku rahdaa federalism muddo dheerna kusoo shaqeynaya amniga marka qaab dhismeedka booliska marka waa in asagana la kala qaybiyaa oo booliska dowlad goboleedkii iyo booliskii dowladdii dhexe loo kala saaro yani waxaa jiray heshiis oo Somali police model miyaa la oranayo oo 2016 la gaaray laakiin asagana wuxuu u baahan yahay in madaxda heshiis ay ka gaaraan wasiirada ayaa gaareen marka waxay u baahan yihiin in madaxda heshiis ay ka gaaraan oo dastuurka lagu cadeeyo yani simply haddaan example usoo qaadan oo kale booliska dowlad goboleedka wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo dadka dowlad goboleedka ku nool amnigooda naftooda maalkooda inuu ilaaliyo kan dowladda dhexena dee safaaradihii inay ilaaliyaan Interpol oo kale inay ayaga mataqaanaa la xiriiraan marka waa in heshiis laga gaaro awoodaha booliska dowlad goboleedka iyo booliska federaalka waa inay kala qaybsadaan awoodaha hanaanka maaliyadda marka revenue see dakhliga loo soo aruurinayo see canshuuraha loo wadaagaya see loo soo aruurinayaa canshuurihii see dakhligii loo wadaagaya oo loo soo aruurinayo ayadana waxay u baahan tahay in laga heshiiyo canshuuraha iyo dakhligaba waa in laga heshiiyaa qaabkii loo maamuli lahaa oo loo wadaagi lahaa jinsiyadda ayadana waa wax meesha ku jiro ma sidii horaan ahaanaynaa oo ma 1960 oo kale jamhuuriyadda Soomaaliyeed qof walbo dee Soomaali ah oo ku nool hadda inta jamhuuriyadda ah ma dhalashada yuu helayaa mise waa la carabaabayaa inta hadda jamhuuriyadda unbas ayaa Soomaali loo aqoonsanaya oo jinsiyadda Soomaalinimada dalkan tan qowmiyadda waa naga wada dhexaysaa laakiin dee baasaboorkii iyo laanshii iyo codayntii ma inta hadda jamhuuriyadda ku jirto unbas loo asteenayaa mise sida 1960 ka dhigana ayadana waa qodobada dastuurka oo lagu muransan yahay oo wada xaajood siyaasadeed u baahan qaab dhismeedka dowladda ma sidaan hadda ahaanaynaa madaxweyne ra'iisul wasaare madaxweyne ku-xigeen ma ahaanaynaa parliamentarian system ma ahaanaya see mataqaanaa presidential system ma ahaanaya yani ayadan waxay u baahan tahay in laga doodo oo laga heshiiyo waxyaabaha la isku haystay ka mid tahay intaasay noogu eg tahay marka haddii yani la dhammaystiro maxaan ku irahdaa qodobadan hadda loo xayiran yahay oo u baahan in heshiis wadaxaajood siyaasadeed laga gaaro haddii la dhammaystiro waxaan ku rajaweynayaa dastuurka Soomaaliyeed in la qabyatiri doono insha Allah laakiin kumeel gaar actually wuu sii ahaanayaa waayo Somaliland maqan afti looma qaadi karo ilaa inta arrinta Somaliland ayadana waa mid mabda siyaasi ah oo heshiis siyaasadeed u baahan dastuurin waa taa dalka midnimadiisa in la ilaaliyo waa wax dastuuri ah
heshiis siyaasadeedna u baahan tahay in dalka dastuurka la ilaaliyo midnimadiisa kadibna dee in daaqad loo furo wadahadallada somaliland oo dastuurka afti aan loo qaadin kumeel gaar u sii ahaado kadibna markii somaliland ay timaado afti loo qaado oo heshiiska siyaasadda xag ka soo baxa xataa waxaa loo baahnaan doonaa actually in at the end of the day luuqad dastuur lagu qoro oo dastuurka lagu daro marka in haddii la rabo in la qabyo tiro dastuurka oo dib eegis dastuurka go'aan laga gaaro la dhammaystiro lagu guuleysto waa in arrimahan sida ugu degdegsan looga maxaan ku ihahdaa heshiiyaa laakiin waxaan bogaadin mudan runtii in aad loo amaanan mudan guddiga baarlamaanka la socodka hirgelinta dib eegis dastuurka oo senator cabdiqaybid uu guddoomiyo iyo guddiga madaxa bannaan dib eegista hirgelinta dastuurka oo professor maxamed daahir afrax uu guddoomiyo waxaan runtii mudan in lagu ammaano sida ay inti badan qaladaadyadii dastuurka ku jiray arrimaha farsamo u baahnaa ama type ururaad u jiray ay u saxeen ayagana baarlamaanka u gudbiyeen laakiin hadda madaxweynaha dib u dhigay dib eegis dastuurka baarlamaanka soo socdaa guddiga samayn doono ayagana halkaasay kasii wadi doonaan oo wixii dhimanay sii dhammaystiri doonaan ustaad xasan adaan kuu soo celinayaa aadaan u mahadsantiin waxaan u malaynayaa waxaan qaadanaynaa su'aalaha waa mahadsan cabdicasiis wax badan aan faa'iidaysanay taariikhda guud dastuurada waddanka uu soo maray caqabadaha hortaagan waan soo aragnay waxyaabaa la isku haysto inay tahay farsamo iyo waxaan u malaynaaba siyaasadda inay ugu horeyso oo siyaasadda ugu weyn tahay caqabadaha hortaagan yahay qabiitirka dastuurka haddii aan siyaasadda laga heshiinin in wax kale oo dhan ay adkaanaysa haddii mar siyaasadda laga heshiine wax kasta inay furfurmayaan oo ay sahlanaanayso in la isku fahmo hadda marka qaybta labaad aan usoo gudubnay qaybta su'aalaha dadka ka qaybgalayaasha waxaan rabaa inaad hal qaacida inay ila fahantaan marka hore magacaada ku bilaaw sheeko dheer inaan gashana ma rabno because waqtigaan noogu socda haddaa su'aal qabta 2 daqiiqaan ku siinaynaa haddaa faallo qabtana 2 daqiiqaan ku siinaynaa markasta 2 daqiiqa inaad ku xisaabtantaa la rabaa magacaadaa ku bilaabaysaa meeshaad joogto ayadana waa noo sheegaysaa su-aashana toosa u gelaysaa marka haddaa rabta inaad sheekayso oo aad waqti dheer qaadatana ogo waa kaa dhexgelina kuuma ogolaanayo 2 daqiiqan ku sii 2 daqiiqa inaa ilaashato mawduucan ayaan laga dhex bixin yani yaan la aadin yani meel ka baxsan mawduuca dastuurka taariikhda dastuurka iyo qabyatirkiisa iyo caqabadaha hortaagan ayadana waa waxa waaye idinka codsan lahaa inaad saa samaysaan okay marka qofkii su-aal qaba gacantu taagana waxaan u jeedaa بدر حاجي بدر سودو موتي سقط حسن مدن aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waxaan sidoo kale u mahad celinaa cabdicasiis goobdoon saaxiibkay oo si faahfaahsan oo qurux badan uga sheekeeyay taariikhda dastuurka Soomaaliya waana aadaan u bogaadinaa waxaan ka wadaa yani dhalinyaronimada iyo yani sida uu sharaxay fahamka guud ee dadka ka siiyey waxa waaye wax oo yani jaamacad oo kale looga soo baxo waa markii ugu horreysay oo dastuurka Soomaaliya oo sidaan loo sharaxay yani aan dhageysto ama aan arkay oo aad loo soo qulaaseeyo aad u qurux badan marka aadaan u bogaadinaa cabdicasiis waxaan u galaa marka su'aalihii dastuurkan qabyo qoraal ayaa la dhahaa ilaa iyo intii yani qorayna qabyo qoraal waayaa lagu hayaa maadaama wasaaradda ka shaqeynaya uu guddiyadii la ama yani loo madlansan yahay in la dhammaystiro dastuurka yani ma leeyahay deadline la leeyahay deadlinekaas ayuu ku egyahay dastuurka in la dhammaystiro oo afti loo qaado qaran oo markaas dastuur qaran uu noqdo mise waxay ku xiran tahay yani heshiiska laga gaarayo ay gaarayaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mahadsantiin okay waa mahadsantaa Badr cabdicasiis su-aasha Badr waa fahanto ma aniga xogaa qadka deadline ma jira uu yiri oo dastuurka lagu dhammaystirayo saasaan u fahmay mise waxay ku xiran tahay yani heshiis laga gaaro heshiis ay gaaraan yani maamulada xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka heshiis ay gaarto may ku xiran tahay
mise waxay leedahay jadwal gooniya oo la leeyahay xilligaas lagama gudbi karo intaasaan weydiina haddii su-aal kale lii ogolaan بدر السؤال كلا داخل توقلي كرتا go ahead سوق باكين su-aasha kale aan qabo waxa waaye yani dad badan oo Soomaaliyada waxay aaminsan yihiin dastuurkan inuu ahaan yani dastuurkii saxda ah inuusan ahayn la aaminsan yahay oo dadka ay ergooyinka Soomaalida iyo oda dhaqameedyadii iyo bulshada rayidka iyo ay ansixiyeen oo ay wax ka bedel ku sameeyeen marka dad badan waxay aaminsan yihiin oo ka qayb galay yani ansixinta dastuurka in qodobo badan ay ka saareen ay hadda ku arkayaan oo lagu soo daray oo kii loo keenay loo soo daabacay laakiin kay turxaan bixiyeen aan yani la soo qaadan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka muudayna mar uu dhahay dastuurkii yani lumay marka waxyaabahaas Cabdicasiis hadduu wax ka ogyahay waa weydiina okay waa masanta bedel aadam sita midgal codka iska xir cabdinaasir suule cabdinaasir soo dhawow muudka iska qaad gudaha gal السلام عليكم. عليكم مكر وحرب أنا ما أدري. قول على حسن مدنة عبد العزيز قبضون iyo macadka Haybad. hal su'aal aan qabaa. dabcan su'aashayduna waxay xogaa xiriir la leedahay dastuurkii 60kii. aaraariyan marka uu sameeyo dastuurka su'aashaas aan qabo dabcan calanka jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaa la meel mariyay 1 July 1954 waxaa lagu meel mariyay golihii deegaanka ama theoretical councilkii waqtigaas jiray waxaan lagu meel mariyay law number 17 oo soo baxay 6 September waqtigaasi gobolada waqooyi ma aynan joogin waxa la jeedaa midowgii labada gobol muuna dhig astaanta qaranka ayadana waxaa la meel mariyay 1956 waxaan lagu meel mariyay law number 11 oo soo baxay 10 October 1956 sidoo kale gobolada waqooyi ma aynan joogin haddii aanan qaldanayn dastuurkii 1960kii qayb qoraalkiisa waxaa ka shaqeeyay ajnabi iyo khubaro Soomaaliya laakiin konton xubnood loo saaray ugu dambeyn si u soo turxaan bixiyaan 1960kii waxaa la howlkeenay baarlamaankii koonfurta oo 9 xubnood ka koobnay ayagana meel mariyeen sidaas oo kale gobolada waqooyi ma aynan joogin weli midowga ma dhicin 20 June 1961dii waxaa afti dadweyne loo qaaday dastuurkii 1960 haddii aanan qaldanayn gobolada waqooyi waxaa maya ku codeeyay dastuurkaasi 52.87% dadweynaha codka dhiibtay marka mudane su'aasha aan weydiinayo waxay tahay Sheekh Cali Cabdicasiis Goobdoon maxay ahayd qiimta uu lahaa dastuurkaasi ay u diideen walaalihii waqooyi mise la dhihi karaa waqtigaasi koonfurta waxay seegeen in ay ka tilaabsadaan mabda'a dimuqraadiyadda iyo hogaamisay ah majority leaders minority koonfurta ama walaalaha koonfurta ay ku sixi kareen cabashada ay qabeen walaalaha waqooyi ayagoo fiirinayeen 52% ama 52.17% ay diido dastuurkaasi su'aasheedu waa taas xasan mudan aadam wasalaam waa santahay cabdinaasir midgal Cabdicasiis su'aalaha afar aan isku raacsiinayna marka waxaan uga I think saddex fiican ila taad u dhaadheeriyin okay bas marka su'aal kale oo qoran aan ku siinaa laba su'aal hore la weydiiyay midaan waxaan soo weydiiyay Mustafa Maxamed wuxuu leeyahay ma jiraan shuruudo loo baahan yahay in loo maro dastuurka dhameystir macnaha yani ma jiraan shuruudo ay ku xiran tahay in dastuurka la dhameystiro su'aasha ku weydiina Mustafa waaye oo qoran tahay marka soo dhawow saddex aan iskugu qabanaynaa akhyaarta kale oo u soo laabana wareeg labaadaan galeena ama santa soo dhawow Cabdicasiis waayahay xasan aadan kugu madcelinayaa adiga iyo asxaabta badri xaajiya ugu horeeyaan jeclahay wuxuu yiri deadline ma jira oo dastuurka in lagu dhameystiro ay tahay waxay ku xiran tahay siyaasadeed horta waxay ku xiran tahay hor iyo horaanba in political will uu jiro rabitaan siyaasadeed inuu jiro oo ragga siyaasiyiinta xukunka ay rabaan oo yaan loo fahmin uun dadka maanta dowladda federaalka madaxda ka oo dastuurka arrintiisa waa la wadaagaa dowlad goboleedyadana waxay ku leeyihiin role ku leeyihiin aad u ballaaran marka siyaasiyiinta ama hoggaanka dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada rabitaan siyaasadeed inay leeyihiin oo ay rabaan commitment uu jiro dastuurka in la dhameystiro ayagana ku xiran tahay inay heshiis siyaasadeed ka gaaraan arrimaha la isku hayo ama political contentious issues ayaga ku xiran tahay inay heshiis siyaas ka gaaraan
marka haddii ay ayaga soo gaaraan heshiiska siyaasadeed deadline waa la samayn karaa waa la oran karaa maxaan ku irahdaa waa heshiiskii waa la soo gaaray luqadda dastuurka loo bedelo si degdeg ah loo mataqaanaa dastuurka loogu daro waa la dhihi karaa waa markaas deadline waa la qaban karaa waxaana runtii rabaa inaan idiin sheego hadda intaan wasaaradda la shaqeynayay deadline wuxuu ahaa marna 2019 ku ahaa marna 2020 laga dhigay June labadu ku dhameystirmi waay waxaan loogu dhameystiri waayay wuxuu ahaa khilaaf dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka taagnaa oo sababi waayay in madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isku yimaadaan oo arrimahan laga wada hadlo marka maxaan ku irahdaa arrintaasaa jirtay haddii dib loogu noqdo 2016kina waa tii lagu mashquulsanaa dowlad goboleedyada in la dhiso waa tii mar Puntland iyo dowladda isku dhaceen waa tii Jubbaland iyo dowladda mar isku dhaceen 2018kii marka ilaa 14kii marka maxaan ku irahdaa mar walba khilaafkaas ayaa problem u ah in madaxda isku yimaadaan oo ay dastuurkii arrimaha dhamaystirkiisa u baahan ay ka wada hadlaan oo siyaasad ahaan la isku hayo marka haddii isku yimaadaan xataa oo mawduuc kale ka hadlaan dhowr jeer isku yimaadeen mawduucyo kale ka hadlaan mar amniga ka hadlaan mar waxay ka hadlaan doorashada marka political will inuu jiraa la rabaa oo ay arrimahaas ka wada hadlaan marka odayaasha ku xiran tahay madaxda gobolada iyo federaalka ku xiran tahay inay ayaga iska soo gudbiyaan waxyaabaha u baahan in ayaga heshiis ka gaaraan su'aal kale uu qabo Badri oo ahayd dastuurka ma la xaday siduu gudoomiye Mudde u yiri taas waxay u baahan tahay in la weydiiyo saxiixayaashii dad oo saxiixaya jiray oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo dad kale oo maxaan ku raadayay dastuurka ma taqaanaa saxiixay marka la ansixiyay kadib dadkii ansixiyay 825 qof oo iskool booliisiyo ku ansixisay oo nool ayaa u baahan in la weydiiyo la yiraahdo rahaye constitution-kii la meel mariyay iyo kan maanta aan ku dhaqanno ma isku siyaamis waa ka marka sidaad meelaha uga maqlayseen unahan uga maqlaayay laakiin de qofkii oo maxaan ku irahdaa timbara ku dhufan lahaa ama rumayn lahaa ama beenin lahaa miyi maxaa yeelay ergadiina kama tirsaneen dadkii markaas saxiixayna kama tirsaneen oo siyaasiyiintii markaas saxiixdo ayagana grow 1 iyo grow 2 ba ka qaybgash ka mid ahayn marka inta ugu soo gudbo Badri Cabdinaasir Suule wuxuu yiri goboladu qoy waa diideen ama number badan ka diiday constitution 1960 marka maxaa loo qadarin waayay diidmadoodii wallahi taas waxay ku xiran tahay marka siyaasadii jirtay ma garan karo laakiin dadka Soomaaliyeed markaas hal wadan isla ah one population ay jiray haddii dadka joogo waqooyi laga tira batay oo yani looma marka looma codeynaynin gobolada waqooyi maxay dheen gobolada koonfur maxay dheen looma codeynaynin population-ka Soomaaliyeed laga qaaday dadweynaha Soomaaliyeed laga qaaday si wada jiraan haftida ma taqaanaa ka qayb galayeen marka majority-ga intuu u batay ayaa mar walba la aadayaa oo dastuurkii majority-ga dadka Soomaaliyeed oo markaas jamhuuriyadda ku mideysnaa oo gobolada waqooyi iyo koonfur waa ansixiyeen inta badneed marka saasuu dhaqangal u noqdo laakiin waa jiraan arrinta Somaliland oo maanta la isku hayo waa jirtaa inay dib ugu noqonayso maxaan ku raadayay 1960 Act of Union-kii la galay lagu dhaqmi waayay maxaan ku raadayay dada 1960 intuu gacan ka dhalan ka hor adgambi sameynaa gobolada waqooyi ayagoo maxaan ku raadayay wax tabanayo marka actually waa jirtaa in Somaliland ay wax tabanayso oo la dhageysan waayo taasoo ka soo bilaabatay yani xilligaas 60 marka ayadana taas qadarinteeda u baahnad laakiin dastuurka marka afti loo qaadayay population Soomaaliyeed oo wada jira laga qaaday dadka Soomaaliyeed oo badankoodna waa ansixiyeen Mustafa Maxamed wuxuu yiri ma jiraan shuruudo ay ku xiran tahay in dastuurka la dhameystiro dastuurka in la dhameystiro heshiis siyaasadeed ku xiran tahay waa in arrimihii hadda aan sheegaynay oo awood wadaagii fiscal federalism-ki justice model-ki hanaanka cadaaladda maaliyadda maxaan ku raadayay awood wadaagii dakhliga ma taqaanaa wadaagga dakhliga maxaan ku raadayay arrimihii amniga in heshiis laga gaaro waayo haddii oon heshiis laga gaarin dee lama dhameystiri karo marka ani waxaan isleeyahay uun shuruudda ugu weyn waxaa waaye in ma taqaanaa arrimahaas heshiis laga gaaro haddii marka heshiis laga soo gaaro kadibna waa in political will uu jiraa commitment uu jiraa rabitaan siyaasi iyo maxaan ku raadayay go'aan waa inuu jiraa oo
dadka siyaasiyiinta ah ay ka go'naato in dastuurkan la dhammaystiro sida ugu dhaqsiya badan laakiin hadda shuruudda ugu weyn oo hortaagan waxaa waaye in maxaan ku irahdaa heshiis siyaasadeed la gaaro haddaanan heshiis siyaasadeed la gaarin dastuurka uu qabyo aadana mar walba isku soo noqnoqoshada iyo isku dhexyaaca lagu jirayaa maxaa yeelay dastuurka hadda jiro dadka qaar waxay ku tilmaamaan in taab irar badan oo ku jiro in awoodaha mararka qaar isku soo noqonayaan marka si marka waxaas oo dhan looga baxo waa in dastuurka la dhamaystiraa ayadoo laga shidaal qaadanayo shuruudda baahida loo qabo in heshiis siyaasadeed laga gaaro waxyaabaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan ee constitution ku jiro intaasaan kusoo koobi lahaa xasan dibaan ugu celinaynaa asxaabteena kale okay brother waa mahadsantahay weli dadaa gacmaha u taageen marka wareeg saddexaadaan sameynaa waxaan rabaa inaan marka la xusuusiyo su-aalaha toos u gala magaciina ku bilaaba su-aalahana toos u gala ayaan lagu dheeraanin qof kastana 2 daqiiqa ha dhaqaalaysto waxaan ku bilaabi lahaa zakariya cabdallah zakari soo dhowo toos u gal zakariya mudki iska qaad بسم الله اوكي ذكرى المغرب وايه حليمه وصقل وأمهد علينا عدكو حق رقعة سكرية وصقل اوكي وصقل عدكو حق رقعة هلو ذكري جو هيد واكو مغنى اوكي waxaan rajeynaa in la maqlo male maqlaan aadi واكو مغنى waa u mahad celinaa xasan mudane iyo walaalkeen cabdicasiis waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah haddii uu ka warqabo amaba uu ka warhayo maadaama dastuurka ay hogaamiyay wasaaradda arrimaha dastuurka ma la dadejiyaa shaqada ah in dadka la baro constitutionka la geeyana degmooyinka iyo gobolada dalka jabtarna ma loo baraa maadaama dadku aysan dastuurka wax badan ka fahamsanayn dad badan ayaa aaminsan inuusan wax jira ahayn ma la geeyaa gobolada iyo degmooyinka su-aashaasaan qabaa waa mahadsantihiin waa su-aal aad u fiican aad u mahadsantahay zakari midgal waxaan ku laabanaa cabdisalaan cabdisalaan mudki iska qaad soo dhowo su-aasha toos u gal cabdisalaan markuu maqalno codkaa kor u qaad okay cabdisalaan waan kuu soo laabanaa xaliima I think cabdisalaan inuu muudka iska qaado waay waa soo gala haddana uu ka noqdo maya cabdisalaan codka u furi maayo xaliima muudka iska qaad هلو ملا مقلة waa ku maqalnaa xaliima soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ربي يعني هل سؤال سؤال شو حواي وحالي دستورك وحرين أفكار سياسة بل سياسة ده صح إيتها إنه من ذاك لو حواي دستور كان يعني وح ولفقي وحن وملينا إنه إيتها horta kii 60 kama hadli karno hadda federal aan ay dastuurka 60 wuxuu ahaa hal dawlad oo hal wada wax xakunta gobolada oo dhan laga xukumo dawlad dhexe laakiin hadda federal aan qaadanay cilada ugu weyn oo haysato oo dastuurkeena markaa meelo badan ka fiiriyay dhibka ku hayo waxa waaye dastuurku federal aan qaadanay federaalkuna waa nuuciyo badan yahay نوع فيدرال آن قادنا تستور كأنه كم دقنا هدي نوع فيدرال آن قادنا وكل دقنا لها نظام ويلان لها الراعي حاجر وحاجرة فيدرال دولة وحوق بدنتها دولة ذها كم ذوبين كأود يريهين فيدرال وحاجر دولة ذها فيدرال كم ذوب حوق ليهين مدة حنا أي حوق يرتها مد أي وحود ليهين أجرته annagu wixii oo dhan aan isku nahay marka waxa la isu qaban laayahay oo
dowlad goboleedyadiina ay awoodooda u haystaan oo dastuuradooda u haystaan oo dastuurkoodii ay ku shaqaynayaan oo mararka qaarkood khilaafaya dastuurka weyn oo jiro marka dastuurkan aan lahayn jiho federaal ah oo loo raaco saasaa aniga kusoo gabagabeynaya waa mahadsantahay guddoomiye waa aragti fiican waaye gudoomiye ma ahayaa gudoomiye waay waa mahadsantahay sixitaanka ay saxday guddoomiye mahadsantahay su-aalaa iga dhalatay su-aasha guddoomiye xaliima waxaan u malaynaya adiga laftigaada cabdicasiis ra'yiga ku darsan kartaa masalan waxay ahayd haddii nooca nidaam federaal waddankan uu qaatay dastuurka ay ku qornaan lahayd mushkiladaha siyaasadeeda maanta taagan iyo waqtiga dheer oo dastuurkan uu qaadanaya dhamaystirkiisa ma jiri lahayn waxbaa kala caddaan lahaa marka cilladda waxaa waaye political will ma haddaa waxaa ku doodaysay in political will inaysan jirin laakiin cilladda waxaa waaye gaariga lagu soconaya noocuu yahay maba la yaqaanaba gorme marka gaariga la kaxeynaya saasoo u malaynaa guddoomiye xaliima doodeeda inay tahay aadaan uga helay bal adiga wax ku darso ra'yi ku darso se u aragtaa kadib qof kalaan siinaa markaas waa kugu soo wareejina safiya axmed gabdhaha waxaan rabnaa inay gacmaha taagtaan oo codkooda in la maqlo aragtidooda in la arko marka safiya soo dhowow codkaaga qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واني سلامي حسن iyo cabdirasaaq waani salaam sigaara maasha allah cabdirasaaq aad u mahadsan yahay sidii wanaagsan noogu sharaxay cabdicasiis cafwan su-aashaa rab waxay tahay inta badan waxaa aragnaa dastuurka wuxuu soo tiijamaya muddo badan mar kastuu midgaar ayaan lagu hayaa marka waxaa is leeyahay inta badan wuxuu u dhamaystirmi leeyahay madaxweyne kastoo yimaada hadduu dhammaystiro wuxuu ka baqayaa dastuurka inuu ku xadgudbo uu qabto marka qof walba uu iska ilaalinaya inuu si gacantiisa isku qabto marka ma dhihi karnaa si dastuurkii loo dejiyo soomaalida inta badan markii hore waxay u laaban jirtay dhaqan in odayaashii dhaqanka lagu dooro dadka ka midka ah ee dastuurka wax ka dhammaystiraya si loo dejiyo dhammaystirkiisa ma dhici kartaa arrintaa taasaa weydiin lahaa inta dambe kusoo celi waxay maadaama inta badan hadda loo dhaafay dhamaystirka in siyaasiyiinta bas loo dhaafo maamul goboleedyadii loo dhaafay in dhaqameedka oo kale dhaqameedkii iyo dadka kale bulshada rayidka in loo laabto oo dastuurka iyo qayb weyn ka yihiin dhamaystirkiisa si dastuurkii loo dedejiyo aysan siyaasiyiinta bas gacanta ugu haynin ma dhici kartaa taa waa aragti aad u fiican su-aal kaloo meeshan waxaan u jeeday ha safiya waa mahadsantahay ralla waa kaa dhex galay waa mahadsantahay safiya cabdicasiis su-aal kaloo waxaa jirtay oo su-aasha safiya xoojinaysa masalan meeshan waxaa ku qoran dr caddo wuxuu leeyahay sida amniga iyo doorashooyinka siyaasiyiinta ay waqti ugu bixiyaan oo waqti badan loo siiyo dadaal badan la geliyo suuragal ma tahay in isagana dastuurka waqtigaas la geliyo oo shirweyne loo qabto su-aasha safiyana waxay ahayd ma lisleeyahay odayaashii dhaqanka iyo bulshada rayidka loo baahan yahay oo shaqadii dastuurka waxaa loo daayaa siyaasiyiin oo qolo walbaba danteeda gaarka ah xeerinaysa marka saddex su-aal way ku qorantaa umalena cabdicasiis kadib wareeg saddexaadaan gelayna waa mahadsantahay soo dhawaad waa mahadsantahay xasan sakariya cabdallah haddaan ka bilaabo wuxuu yidhi wasaaradda ma ka shaqayso dadka inay barto dastuurka oo yacni dadka loo sharxo oo maxaan ku raacday jabtar loogu sharxo gobolada iyo degmadana la gaarsiiyey horta dadka dastuurka waa baran karaan hadday rabaan oo online-ka ku jira waa mataqaanaa ii sheeg waa meel kastuu yaalaa laakiin waxaa jiray hadda ka horna wasaaradda SMS intaan la shaqaynayay waxaa la sameeyey istiraatiijiyad dadka lagu gaarsiinayo geedi socodka hadda socdo oo dib u eegis dastuurka waxa uu yahay maxaan ku raadayay sida dastuurka loo dhammaystiri karo doorka ayaga ay leeyihiin ay qaadan karaan bulsho ahaan oon geynay dowlad goboleedyada caasimadooda laakiin xamar aan ku samayno tababar oon tababarnay maxaan ku raadayay dadka socda wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka oo dowlad goboleedyada si ayaga marka fariimahaas ay u qaadaan oo dadkii ay ugu geeyaan oo lagu booriyo dib u eegis dastuurka socoto waxa uu yahay sida ugu qaybgeli karaan iyo sida ay dastuurka u fahmi karaan taariikh ahaan iyo waxa uu yahay
dib u sixidiisa iyo dib u eegistiisa marka taasna dee waxay u xil saarneed dowlad goboleedyada inay fuliyaan wasaaradoodii annaga laakiin wasaaraddii aan la shaqaynayay wixii door nooga aadanaa ilaa iyo xad baan qaadanay dalkana lama gaarsiin karo degmo waa la ogyahay dee amniga siduu yahay laakiin hadba wixii karaan ah in wasaaradahaas iyo saraakiisha ka socotay iyo bulshada rayidka gobolada tababarka aan sinay inay sii gaarsiiyaan ayagana inta karaankooda ay gaari karaan haddii ilaa tuulo gaarsiin karaan waa sida ugu fiican laakiin annaga dhowr jeer aan tagnay dowlad goboleedyada caasimadooda bulshada rayidka la kulannay siyaasiyiinta la kulannay wadaadada la kulannay haweenka la kulannay dhalinyarada la kulannay u sharaxnay ka codsannay in dadka ay la wadaagaan fariimaha dib eegista dastuurka iyo waxa dastuurka laysku haysto uu yahay qodobada laysku haysto ay yihiin iyo guud ahaan dastuurka Soomaaliyeed waxa uu yahay oo kii 2012 la ansixiyay markaan ka soo gudbo Sakriya gudoomiye Xaliima Ismaaciil Xaliima Ibraahim runtii aad aan ugu faraxsanahay inay nagala soo qayb gasho barnaamijka waana salaamayaa waxay weydiisay dastuurka waxaan ku celceliyay heshiis siyaasadeed in loo baahan yahay si qodobada ugu xasaasisan ee laisku haysto loo dhammaystiro marka muxuu yahay is-afgaradkaas siyaasadeed tan kalena waxay noo soo jeedisay oo runtii wax meesha ku jira oo xasan mudane u xoojiyey federaalkan dalka ka jiro lama cadeen federaalnimadu waa la iska qaato waa run laakiin noocii lama cadeen marka jahwareerka jiray si shidaal ku sii shubaysaa dowlad goboleed kastana dastuurkiisa oo hadba awood iska siinayo ayay ku dhaqmaayeen haddaan marka tan hore u hormaro is-afgaradka siyaasadeed wuxuu yahay horta dastuurkan marka horeba asagaa wuxuu ku yimid marka horeba heshiis siyaasadeed waa ogeen garoowe ilaa garoowe 2 wixii laisla soo maray kadibna dib eegistii marka la bilaabay dowladdii hore ilaa hadda uu socday waxaa qodobo waxaa la sameeyey political contentious issues leeyahay oo muran siyaasadeed ka jiro marka yaa ka heshiinaya waxaa ka heshiinaya la yiri dowlad goboleedyadii iyo dowladda dhexe waxa u horeeya marka awood wadaagga haddii awood wadaagga la isla meel dhigo oo awoodihii la kala qeexo ani waxaa aaminsanahay federaalka qaarna halkaas ka soo bixi doonaa sida hadda gudoomiyaha ay sheegaysana qaar awoodda dowladda yacni dowlad goboleedyada u badan yihiin qaarna dowladda dhexe mataqaana u badan yihiin nidaamyada yacni federaalka jira adduunka jira haddii awoodahaas la isla meel dhigo oo awood qaybsigii iyo heshiis fiican laga gaaro ani waxaa aaminsanahay federaalkan hadda laisku haysto nooca uu yahay xagguu ka soo bixi doonaa markii heshiiskaas la gaaro kadib marka si marka constitutionki loo dhammaystiro arrimahaas muranaa ka jira la yiri oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka heshiiyaan ay tahay sidii doorashada loogu heshiiyey baydhabo loogu soo heshiiyey ayaa loo baahan yahay inay heshiiyaan si mataqaanaa loo soo afjaro maadaama hadda ilaa arrimihii farsamada u baahnaa iyo dib u sixid u baahnaa ee guddiyadii soo dhammaystireen waxaan rajeynayaa inay su-aashaas aan sida ugu fiican ugu jawaabay Safiya Axmed waxay tiri madaxweynaha marka madaxweyne kasta xukunka ay ma dhammaystirayo dastuurka tiri dastuurka qabana actually hadda dastuurka lagu dhaqmaa waan lagu dhaaraya hadda uu qabana tan kalena dee waa inaan ogaanaa ma ogtahay annaga dastuurka gacmo iyo luga ma lahan iyo wuxuu qofka isaga qabtee in la ilaaliyaa la rabaa wixii lagu heshiiyey constitutionka wixii lagu heshiiyey oo dastuurka lagu daray oo awoodihii iyo mataqaanaa madaxweynaha waxa kaga aadan waa inuu ilaaliyaa asagaana ahaba ilaaliyay constitutionka siyaasiyiinta oo dhan oo dowladda dee xilalka siyaasadeed ka ahayn waa inay ilaaliyaan hadda constitutionka waa jira waa sharci qofka jabiye actually dembi oo kale laakiin dee cadaaladdeeni ayaa loo baahan yahay in la cadaalad mariyo qofka jabiye taasna dee waa iska garan karnaa waaqiciga awooddeena garsoorka siday u yartahay laakiin waxaa shak ku jira maalin ka dambeeyo sida dowladda usoo xoogeysanayso ayay garsoorkina isku bedelayaan marka ma loo bedelay ma loo dhiibi karaa bulshada rayidkii odayaasha dhaqanka marka hore constitutionka sidiisa horta waa reconciliation waa geedi socod dib u heshiisiin waaye marka haddiiba dib eegis lagu samaynayo ama dastuur la samaynayo asagaa dib u heshiisiin actually dadka bulshada rayidku waa inay ka qayb galaan odayaasha waa inay ka qayb galaan haweenku waa inay ka qayb galaan
waa inay door ku yeeshaan laakiin dee waddanka siyaasiyiina xukunto ayagaa la rabaa inay maxaan ku irahdaa dowladdina siyaasiyiina madax ka ah oday dhaqmeed kama ahan iyo madax marka siyaasiyiinta ayagaa laga rabaa wixii siyaasadda kaga aadanaa inay kasoo baxaan bulshada rayidkana wixii bulshada rayid ahaan kaga aadanaa dastuurka inay kasoo baxaan la rabaa qof walbana roolkiisa uu kasoo baxo si dastuurka loo dhammaystiro professor Caddow wuxuu yiri doctor Caddow wuxuu yiri دكتور عدو وحيري أرمها أمنية iyo siyaasadda ayay focus ka saaraan dadka siyaasiyiinta ah ama madaxda ah marka sidee maxaan ku iraadaa wuxuu soo jeediyey constitution si waqti loo siiyo in shirweyne dastuur la sameeyo waa macquul ma tahay maadaama arrimaha amniga iyo siyaasadda iyo doorashooyinka mar walba focus kala saaro actually waa wax sax ah waaye hadda ka hor shirweynaha la sameeyey oo dib eegis dastuurka lagu daafuraayo xamar ka dhacay dowlad goboleedyada kasoo qayb galeen laakiin dee qof walbaa la socdaa waa qanciga dalka ka jiro waa tii dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirkoodii uu wanaagsanaan waaye marka shir waa la qaban karaa horan waa loo qabtay laakiin reality on the ground waxaa waaye shir uun ma socon karo waxaa loo baahan yahay waxaa waaye rabitaan waa in lagu cadaadiyaa doctor Caddow kale aqoonyahanadu ka tirsan yahay aqoonyahankii bulshada rayidka guud ahaan inay ku cadaadiyaan ragga siyaasiyiinta ah dowladda inay constitution ka dhamaystirto constitution-kana mar hore in la dhamaystiro uu ahaa wuxuu iska noqday project mar hore in la dhamaystiro uu ahaa 2002 alifkii dowladdii dhalatay inay dhamaystirtay ahayd haddii laga soo gudbay oo caqabadihii u saamixi waayeen oo federal states ma dhisneen dowlad goboleedyada lagu mashquulay dowladda hadda joogta inay dhamaystirtay ahayd ayadana dee runtii caqabado jiro oo in la xiriyo u baahana hor istaagay marka dowladda soo socota annagoo dhan mas-uuliyad waxaana saaran in dowladda soo socoto oo dhalan doonto hadduu ilaaha idmo inaan ku cadaadino oo meel uga soo wada jeesano sidii constitutionka loo dhammaystiri lahaa ugu yaraan si maxaan ku irahdaa isqa qabsigan iyo jahwareerka jiro oo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka u dhexeeyo awoodaha la isku qabsanayeen ugu yaraan xal loogu heli lahaa mararka qaarna prime ministerka iyo madaxweynaha waxay isugu dhici jireen taariikhda waxay ahayd waa awoodaha constitutionkooda oo xoogaa isku qasan walow 40 sano laga nastay laakiin haddana ugu yaraan dee waa wax dhici kara mustaqbalka prime minister iyo madaxweyne inay isqabtaan marka si looga hortago marka isqabqabsigaas dowladda federaalka dhexdeeda ka jiro isqabqabsiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka jiro dhexdooda waa in constitutionka la dhammaystiraa oo awoodihii sida ugu macquulsan loo wadaago annagoo dhan waa inaan meel uga soo wada jeedsano wixii haddana dhaafay waana dhaafeen shalay ma mudno hadda uun waxa soo socda inaan dhexda u xiranaa la rabaa oo gunta dhiishi isaga xirno oo maxaan ku irahdaa meel uga soo wada jeedsano sidaan dowladda uga cadaadin lahayn dhamaystirka dastuurka xasan adaan kugu soo wareejiyey ومahadsantahay cabdicasiis su-aala hadda horteeda ka muuqata cabdiqaadir dubad wuxuu leeyahay waxaan u malaynaad inay tahay su-aal ra'yi la xiriirta macnaha dastuurka oo kale maxay kula tahay inta ay qaadanayso in lagu dhammaystiri karo macnaha 2025 la dhammaystiri doonaa 2030 la isla aadi doonaa macnaha goormee la dhammaystiri doona dastuurka muddada ay qaadanayso ilaa intee tahay waa su-aal ra'yigaada la xiriira laakiin waxaa jirta inta hadlaysay su-aal ugu soo dhacday example oo kale yani ma la dhihi karaa caqabada ugu weyn marka siyaasadda laga soo tago political willka iyo dastuurkii la fahmin oo ilaa hadda lagu wareysan yahay gudihiisa marka laga soo tago ma is dhihi karaa waxaa jirta dastuurku wuxuu u xayiran yahay arrinta Somaliland masalan ayadoo arrinta Somaliland aan la xallinin oo yani meel aysan u dhicin dastuurkan way adag tahay in ii sheeg afti la geliyo ayadoo ay maqan tahay Hargeysa marka waa wax ku xiran Somaliland arrinteeda ma la dhihi karaa iyo ii sheeg ama waqooyi wax ku xiran waa ma la dhihi karaa marka taas waa aniga xaggayga su-aal igu soo dhacday intii aad hadlaysay waxaan sameynaa saddex qof kalaan siinaa kadibna waa iska soo gabagabaysanaa waxaan u jeedaa qof ay cabdisalaan mudki iska qaad soo gar السلام عليكم حسن وكسلامة
horta dad badan oo caqli lahaa hadlay xasan ma maqlaysaa ها walaalkayow aadan ku maqalnaa soo dhawo salaamu calaykum calaykum salaam horta khiyaarta dhan ood ka mid tahay xasan waa ku salaama cabdicasiis cabdi caajino waan salaamayaa dad waaweynu sida xalimiyare iyo kale oo maaragtay aa meesha ku jira waa salaamayaa dadkaasoo dhan marka hal qodob aan rabaa aniga dhowr qodob aan rabaa inaan maadaama la yidhi hala soo gaabsho waa laba daqiiqo ayaan uga faa'iidaysanayaa horta dastuurka waxaan isleeyahay dastuurka ummadda soomaaliyeed inta meel isugu timaad ma dooran oo maaragtay kuma ina heshiin xal dad oo xal doona wax ay aruuriyeen ummadda dhexdeeda ka aruuriyeen uu ahaa waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed oo isku diina oo federaalism uu ilaa sheegay federaal uu sheegay ummadda soomaaliyeed oo isku diina oo isku afa oo isku kalara horta haddii iyaga taladoo taa federaal ma qaateen waxaan isleeyahay dad gooniyahoo dan kale ayaa bumbadaas oo ag dhigay waxaan kaloo isleeyahay qodobkaasi dhib badanaa lagala kulmay afkaa laga sheegay waana la daadaji waayey sababihii loo daadaji waayena waxaa muuqata wax la wada leeyahay in laga dhigo ayay wuxuu ku daadegi karaan mar haddii ay maqan tahay dadka somaliland ku abtirsado hargeysa degan iyo arlada u dhow inuu hadda meesha uu joogo ku xiraada maahane iyagoon iyagii xal laga gaarin waxaan isleeyahay lama daadiji karo marka waxaa fiicnaan lahayd inaan waqti badan la isaga qaadin oo ummadda soomaaliyeed aan lagu walaacin oon la orinin dastuurkii qabyada ahay meeshaan wax qabyaa ma ka bixi karo iyadoon heshiis siyaasadeed lehelin oon somaliland aan la keenin ama laga sabrin oo aysan iska tegin marka aniga waxaan isleeyahay ilaahayna inta horta anugu ku barisaan kamid ahay federalismkaas ilaahay inuu laalo dadka baryaan kamid ahay ilaahay لأي سبب meel kasta oo aad tagto qof Soomaaliya isku mid ah tiin tawxiidka idin ka dhaxay dadnimada idin ka dhaxaysa haddana waxa lagu leeyahay federalism dad kala qoomiyadaha qaata absala waa ka xumaa inaan ka dhax galo topiga federalismka waa mowduuc aad u ballaaran marka la ka sheekaysanayna laakiin hadda dastuurku u laabo ha su'aasha gudaha u gal adigu aad u mahadsan gudaha u gala marka cabdicasiisaan hal qodob weydiinayaa cabdicasiis maadaama wasaaraddan wax badan aad la soo shaqaysay muddo 4 sano aad ka soo dhex shaqaynaysay oo dowladdii xasan sheekh maxamed hogaaminayay iyo dowladdan maxamed cabdullaahi oo hogaaminaya labaduba ay ku sheegeen inuu qabyo yahay lagu sheegay koormaad isleedahay ka cabdicasiis ahaan aqoonta aad u leedahay wuu dhammaanaho wax arrintaasu waa la gabagabay karaa koormaad isleedahay intaasaan uga baxaa waa maasanta cabsalan aad waa maasanta waxaan u maleynayaa cabdicasiisow su-aashan way soo laalaabanaysaa oo ah xilliga ay dhammaanaysa marka okay waxaan u gudbin doonaa faysal mute iska qaad su-aasha toos u gal faysal hallo faysal soo dhow mute iska qaad okay waxaan u gudbinaa gabdhaha aad ay noogu yarayeen marka yasmin soo dhowow yasmin gudaha u gal mute iska qaad su-aasha gudaha u gal yasmin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملي مقويا ها ياسمين هذا كو مقال سودو مي مقليسان كو مقالنا سودو جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن مدنة يوم حد عبد العزيز هذا هرت أمها سنتين بارك الله فيه إن عبد العزيز هرت وحن كاغم إن سيد very concise summary aad u soo gaabisay the whole story of dastuurka thank you very much and dastuurka alxamdulilah waa soo socday hadda meesha uu joogo muxuma ana hadda talalen su-aasheedu waxaa waa talada waxaa ila roon ummadda hadda soo wada ilaa haddeer next government imaan doonto
iyo horta qashinka in lagu shubo dad cusubo fresh ah energetic ah oo bijinka leh oo maxay 1 year ku dhammayn karo horta in la keeno this is wixii kaas waa waa la daalo wixii markaa muddo ku dhex jirtid oo wax weyn aad ka gaari karin wuxuu ku noqonaa habit inaa mar walba stagnant aad ku noqotid meeshaad aad ka noqosan dasid insaas aga baxay nuur calaa nuur asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي محمد برة واسلم مسيرنا عبد العزيز تيم قاعد تاعي على مرة عارفين هنا كده بس سوق قبلنا ها محمد برة سودو ما شاء الله كريمة ما شاء الله كريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته ماشي كجرت أولا وما سنتين مضاني وكم هاسنتها تشانسكا ايسيس إنا هادلو عبد العزيز وكم هاسنتها سيدا قروح بدن أرنتان أوصل لكتي هانت كم ديرانا هل كومنت أيان قبا دستور كمريكان كان برازيل كان كندا كان إنجليز كان معناها أستراليا انت صار هو فيدراليزم وأنا وضمضة سيدا آتك وشقية دادك فيدرال كعب سنة وادات شكي قبا سيستم كالي وان لوجين taas waa aniga iyo ra'yi gaara mid kale aan rabaa inaan weydiiyo Cabdilcaziz waxay tahay dastuurku wuxuu noqday project waan maqlaay hadda adiga naftigaaga waa tiri maxay kula tahay in aad ku waanisid ama kula talisid madaxweynaha soo socda si dastuurkan uusan u noqon business as usual sidii waqtigii Xasan sidii waqtigii macnaha hadda farmaajo ku jirno maxaa la gudboon madaxweynaha soo socda kadib macnaha waxa waaye doorashada hadda soo socota haddii ilaahay uu rido nabadgelyo ay ku dhacdo waxaa kula talin lahayd in dastuurkan uu ku dhameeyo sababtoo ah dastuurku waa la dhamayn karaa wax weyn kuma xirna taasna macnaha waxa waaye su-aashaas halkaasaan uga baxay iyo commentigii kaleeto idinkoo raalli ah waa ka baxay waa mahadsantaha maxamed aada mahadsantaha su-aal aad u muhiima waaye madaxda imaanaysa mustaqbalka ama dowladda markaas dhalanaysa maxaa talooyin aad u jeedin lahayd waa su-aal aad u fiican cabdifataax tarabi miidkiiska cabdifataax soo dhawo cabdifataax miidkiiska qaad اوكي عمر معو عمر سودو سؤال توصل عمر سودو وقتي قاعد نوها السلام وقت السلام حسن مدنة يا سؤال كلام السوق أضين السلام يا سؤال شان قبل واحد تهاي أرتدت الصومالية ضدهم كافون الجوجا وحنا قلنا دستور الصومالي إنه كحرية هاي أبتدي وين الله لقى نقول الصومالي أيضا تهاي مركز هدي سومالان إيقاعد كيساتو أي في جوج تمشي هذا maxaa laga sligeelaya dastuurkan Soomaaliya si loo dhameynaya wax ay qabaa su'aalaad u fiican waaye ma fahant saasha عمر waa okay عمر waa maasanta su'aasha aad u fiican tahay Cabdicasiis waxaan u maleynaa almost 5-6 su'aal ku qor marka soo dhawo gudaha u gal noo soo koob jawaabaha kadibna waa iska soo xirnayna waqtigeena ayaa lagu dhow yahay gabagabada soo dhawo Cabdicasiis waayahay aadan runtii uga mahadcelinayaa su'aalo muhiim ah runtii halkan ka dhashay runtii wax badan ii faa'iideeyay wax badan noo faa'iideeyay haddaan ku hormaro waxaa cabdiqaadir dubad runtii wuxuu yiri gormaa la dhammaystiri karaa dastuurka 2022 2023 mis 2024 mis 2025 horta runtii waxay u baahan tahay hadda wax badan ma harinba constitutionkan haddii la rabo in la dhammaystiro oo shaqo badan ma harin labadii baarlamaan hore waa soo shaqeeyeen guddiyadoodii maxaan ku yidhahdaa wasaaraddu waa soo shaqeysay arrimahan in heshiiska laga gaaro u baahan in maxaan ku yidhahdaa la isdhaafsiiyo oo heshiis laga gaaro kadibna dastuurkii wixii kaloo oo markaas soo baxo haddii ay dhacdo markaasna la wajaho
laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo waddadii dheer oo lasoo maray oo labadii muddo xileed ee dowladeeda hore lasoo maro runtii hadda waa soo gabagabowday oo waxa dhiman waa wax yar ayaan ula jeedaa marka haddii rabitaan uu jiro dowladda soo socotee timaada 100 maalin u horeysa dhammaystiri kartaa ama sanadka u horeeya ama 6 bilow u horeysa ayay ku dhammaystiri kartaa marka hadba qofkii yimaado ama yani actually dowladda hadda joogto waa soo noqon kartaa hadday rabto just haddii yani ay doorashada kusoo baxdo marka maamulka imaan doono ayaa loo baahan yahay in uu sameeyo maxaan ku irahdaye jadwal uu samaysto kadibna ani waxaan aaminsanahay in hadday u badato 3 bil ilaa 6 bil gudahood lagu soo dhamayn karo because of yani waxay badnaayo laga soo shaqeeyay hadda waa everything oo xitaa laga heshiinayo options ka diyaarsan waxa kadib la raadinayo maahan just in madaxda la horgeeyo oo ay ansixiyaan isku afgartaan uunay u baahan tahay kadibna guddigii loo soo gudbiyey ICRIC oo luqad dastuur loo bedelo arrinta Somaliland waa soo galaysaa meeshaanoo dastuurka dee kumeel gaar sii aanaya ilaa Somaliland ay ka imaanayso afti looma qaadayo wadamo badan oo dastuuradooda afti loo qaadayna waa jiraan haddii la soo baaro marka wadamo badanaa jiro oo weliba naga awood badan oo dastuuradooda afti aan loo qaadin kuna dhaqmo marka Somaliland inta ka imaanayso ama laga keenayo wada hadal laga galayo oo midnimada la soo celinayo misna hadda isugu dhaxdaadsanaanayna mis ugu yaraan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isku dhacayo iyo madaxweynaha iyo prime minister mararka qaar iskilaafa ay awoodaan isku dhex qasan waa kala saarnaa aniga waxaan qabaa dee Somaliland in dariishad loo furo in albaabka loo furo iyo dariishadaba oo aan la xirin arrinta Somaliland oo wada hadalka Somaliland la wado laakiin dee يعني فدرال كان اسكو دخ قرسن iyo awoodahan maxaan ku iraaday dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada iyo mararka qaar prime minister madaxweynaha isku qabsadaan in la kala saaro oo ugu yaraan qaladaadyada farsamo ama type error ka jiro in maxaan ku iraaday laga sii shaqeeyo mudane wuxuu yiri xasan mudane su'aalaad weydiisay mana dhihi karaa tiri dastuurka inuusan siyaasad ku xirnaan oo Somaliland u xireen si loo dhamaystiro aftida loo qaado actually jawaabtii hore ay waafaqsantahay yes Somaliland waa ku xirantahay in dastuurka afti loo qaado oo dhul ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliyeed waaye gooni isu taagay sheegteen waa in la hadlaa marka oo wada hadal la furaa marka heshiis la gaaro oo midnimadii ayada naftirkeeda haddii la doonayo wada hadal la galaya waa siyaasad waaye siyaasiyiin heshiiska galayo siyaasiyiinta waqooyiga iyo dawladda wada hadlayo marka in ayada naftirkeeda waa siyaasad waaye waa in marka siyaasadan laga heshiiyaa waaye oo waxaan ku raadahay Somaliland wada hadalkeeda la furaa oo inta dastuurka laga qabiyo tiraayo ayadana wada hadalkeeda la furaa oo wada hadalkeeda midnimo lagu soo dabaalaa wixii markaas midqana la soo garto kadibna maxaan ku raadahay dastuurka iyo qabiyo tiran kumeel gaarka laga saaraa marka haddii la rabo dastuurka in afti loo qaado oo kumeel gaarka laga saaro actually way ku xiran tahay Somaliland shaki kuma jiro Cabdisalaan wuxuu yiri odaygii Cabdisalaan oo federaalka diidanaa wuxuu yiri yaana lagu wareerinayo yiri qabiyatirka dastuurka iyadoo Somaliland imaanin gormeel dhamaystirka dastuurka waa yiri waxaan u maleynayaa horaan uga jawaabay Somaliland hala doono dastuurkana hala qabyatiro waxa ila tahay inaysan isdiidin oo qadaadyada farsamo dastuurka ku jiro in la saxo wax yani oo loo xeyrnaan kara ma ahan si ugu yaraan hadda inta yani dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada isku ah loo maareeyo khilaafyadooda jira looga hortago dastuurka gormeel dhamaystiri karaa dastuurka waa la dhamaystiri karaa dawladda dhalan doonto inay ku xiran tahay iyo waqtiga uu qabado iyo jadwalka ay dejiso iyo sida ay uga howlgasho oo ay maxaan ku raadahay go'aan uga noqoto ama daacad ay uga aato actually caqabado waa ka hor imaan karaan khilaafaada imaan karo sidii labadii muddo xileed hore dhaco kale wax kasta dhici karo laakiin insha Allah waxaan rajeynaynaa in la dhamaystiro dawladda soo socoto annaga oo dhan waa inaan ka shaqeynaa arrintaas Dr. Yaasmin Salaad aad ayaan runtii kaaga mahad celinayaa jazakallahu khayran
aad ayaan runtii kaaga mahadcelinayaa mahadcelinta ii soo jeedisay waana ku faraxsanaa runtii aqoonyahan gabar Soomaaliyeed aqoonyahan ah oo tutor Yasmiin Salaad oo kale ah inay barnaamijka nagala soo qayb gasho aadan arrintaas ugu faraxsanahay marka tale soo jeedisay oo wax ku ool ah waxay tiri dadkii dastuurka la soo shaqeeyay arrimaha dastuurka ka soo shaqeynayay intaasoo sano maxaan ku rahdaa intay shaqeynayeen wax la dhamaystir waaye hala badda hala raaciyo dad cusub hala qoro fresh ah oo sanad gudaheeda yani ku dhamaystiri karo energy-gooda si looga faa'iidaysto runtii dee ani waxay la tahay dadka experience-ga leh inaan laga maarmaynin dadkaanna wax ayaga ku xiran maaha wax ayaga ku xiran maaha dadka dastuurka soo shaqeeyay wax ayaga ku xiran maaha waa wax ku xiran nimanka siyaasiyiinta ah ragga siyaasiyiinta ah la rabaa inay daacad ka noqdaan dastuurka inay dhamaystiraan oo waxa isku haystaan oo dib eegis dastuurka u xayiran inay iska soo fududeeyaan marka dee haddii dad mar walbaba dee wasiir cusub waa la magacaabaa wasaaradda baarlamaanka xildhibaano cusub waa soo galo boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 xildhibaano cusub waa soo gala sanad walba guddigii hadda for example wasiirka dastuurka 2016 ma ahayn wasiirka 2016 yani ninkii wasiirka dastuurka 2016 waa la bedelo qof kale lagu bedelay waa tii xukuumadda isbedeshay guddigii baarlamaanka xildhibaan Maryan Cariif ayaa gudoominaysa 2016 maxaan ku raahdaa la socodka dib u eegista dastuurka waa tuu baarlamaanka isbedelay waa tii xildhibaano cusub soo doortay waa tii guddigii la doortay haddana guddi cusub la doortay waa tii Cabdi Qaybdiid uu gudoomiye u noqday marka dee mar walba isbedelkaas uu iska jiraa actually laakiin dee waxaa waaye ragga siyaasiyiinta wax ku xiran yihiin annagoo dhan marka maadaan muwaadiniinta nahay waa inaan maxaan ku yiraahdaa ka shaqo galnaa si siyaasiyiinta looga soo dhirin lahaa wax ku xiran oo constitutionka ah oo doorashada qofkii codka ayagaa ku xiran marna waa ku heshiiyaan marna ma fulin karna yiraahdaan waa dastuuri waa maxaan ku yiraahdaa way ku heshiiyeen qaabka loo fulinayo haddana waxay yiraahdaan ma fulin karno marka waa inaan dabagalnaa annaga muwaadin ahaanna ka muwaadin ahaan shacab ahaan annaga waa inaan doorkeena qaadanaa oo cadaadinaa oo pressure saarnaa maxaan ku yiraahdaa siyaasiyiinta inay iska soo fududeeyaan waxyaabaha siyaasadda ah ama qodobada heshiiska siyaasadeed u baahan oo u xayran yahay dib u eegista dastuurka maxamed bare aadan ku salaamayaa saaxiib waana ku mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala soo qayb gashay waana ku faraxsanahay maxamed bare wuxuuna weydiiyey maadaama dastuurka soo socday muddo dheer oo hadda uu project iska noqday maxay tahay yiri inaad ku waanisid madaxweynaha soo socda ama dowladda soo socoto si dastuurka u dhamaystiro kolleyba maxaan ku yiraahdaa wixii hore u soo dhacay oo challengeski hore u soo dhacay oo la jiiri waaye ama la xallin waaye ha isku dayin in la xalliyo oo runtii dastuurka waa curyaamaya hadduu khilaaf siyaasadeed jiro oo maxaan ku yiraahdaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isfahansaneen marka si khilaaf loo yareyn karo inay ka fikiraan kulleyba Soomaali khilaaf ma joojinaysa laakiin in sidii loo yareyn lahaa in laga fikiro haddii la iskhilaafayana dastuurka inaanan la isku khilaafin arrimaha amniga iyo arrimaha doorashooyinka oo kale waxyaabaha kala diyaa la isku khilaafo laakiin wax naga wada dhexeeyo oo aan isku maamuleyno oo awoodeyni iyo tilmaamayo oo dastuurkeennii ah oo dalkeenni lagu hagaayay doorashada qof iyo cod ah annaga aan codan lahayn oon codkeenni xaqeenna dastuuriga ahay muwaadin ahaan aan gudan lahayn waajibaadkeenni muwaadin ahaan aan gudan lahayn in la hor istaago oo maxaan ku yiraahdaa khilaafka lagu saleeyo ayaga xataa ma ficno oo khilaafka la soo geliyay marka in la bislaado oo ayadoo la iskhilaafsan yahayna waxyaabaha naga wada dhexeeyo muhiimka noo aan ka wada shaqeyno ayadana in aan ilbaxnimadaas gaarnana waa wax fiican cumar macow ayaa ugu dambeeyey wuxuu yiri dastuurka in afti loo qaado waxay ku xirantuu yiri see dastuurka afti looga qaadi karaa yiri haddii Somaliland joogin sidee la yeelayaa actually dastuurka afti looma qaada haddii Somaliland joogin in Somaliland heshiis lala soo galaa laakiin inta heshiiska laga soo galay waxa annaga qaladaadyada dastuurka ku jiro oo qalad farsamo ama type error ah
in sidii loo sixi lahaa aanu ka shaqeyno waxaan ku idhahdaa dastuurkana intaas laga shaqeynayana somaliland arrinteeda laga shaqeeyo oo maxaan ku idhahdaa inta dib eegis socota haddii somaliland la keenan ahlan wasahlan waa lagu dari karaa maxaan ku idhahdaa mar walba u furan tahay haddii oo ayadoo qabyatirkan la dhammaystirayna oo maxaan ku idhahdaa la qabyatiray dastuurka la qabyatiray haddii ay somaliland kusoo aadaana dhib ma lahan oo dastuurka laba goro waa ku meel gaar wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro oo ku meel gaarnimada laga saaro markaas laba goro somaliland waa u furan tahay laakiin haddana wax naga hor istaagnaanaya ma lahan in annaga hadda inteena dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dowladdeena federaalka khilaafaadkooda si loo xaliyo oo dastuurkii federalismkii noocii uu yahay la caddeeyo awoodihii la qaybsado waxaasoo dhan yani waxaan aaminsanahay somaliland uma xayrnaan karto waa ka duwan tahay arrinta somaliland arrinta hadda meeshan ka taagan marka in ayadana guddigii wadahadalka la dhiirigeliyo oo laga shaqeeyo oo guddigii wadahadalka somaliland la shaqogeliyo oo ayagana lala soo wada hadlo oo heshiis lala soo gaaro kadibna si dastuurka kumeel gaarnimada loogu saari karo oo afti loogu qaadi karo xasan intaasaan kusoo gabagabeeyey adaan kugu soo celiyey okay cabdicasiis waa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii aan soo gaarnay waa iska soo gabagabaysanaynaa waxaan rabaa inaan aan runtii kaaga mahad celiyo waqtigaaga qaaliga iyo fursadda aad noo siisay mawduuc runtii aad u ballaaran oo aan hal muxaadaro lagu soo koobi karin laakiin u baahan in marba dhinac laga istaago marba dhinac laga fiiriyo sidoo kale akhyaarta odayaasha madaxda barnaamijka nagala soo qayb gashay adinkana waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigeena qaaliga barnaamijkeeni caawa halkaas oo noogu egyahay waa mahadsantihiin habeen wanaagsan ahlan wasahlan jazaak allah xasan aad aa mahadsantihiin habeen wanaagsan